وحوم به إخواني الصدقة عجائب هذا وحكمه هو مركز مقشد نفط هذا وحي دمع عيسى وحك صدها شيء بحس وحقيقة وين مضنتها قفك وحو صدقيسته وحك بدن بإلهي وبدلا هل دول هداد بحسه كمان دول بإلهي وبدلا حقيقة وي وحدليل عائشة رضي الله عنها جواد مسلم كاي بلدغيسو وأم المؤمنين وقفك آثرته أيضا كرئنا النغط أو جنة لقش ما كمل أيضا صومال وقرية أيالان لبا حبو أو خبز ولبا حبو أو عنجيلة أما شباتي أما روتا أو تقانان أيام مسكين بقولي أكسو قراعي قبل خادمته اللي جوكت بيتي البابك وفر وعيه ويفرت سيتي ومسكين سيتي حبت سي هل بيسيسي حوغا كدي با قف كلو مسكين وسو قراعي سيتي رواعي سيتي ومسكين كلا سيتي حبتك كلا سي سيتي يا أم المؤمنين ما نول بوحد هي سطور انتاد بحسو يهدون وحد ولا واحد كو افرت واحد كو افريسا سيتي ادو اسك دايي سي حبت كبي قاده ويسيسي حوغا كدي ayaa qof kale albaabka soo gargaraacay bal fiiri ma miskiin kala hadii miskiin kala maxaa nasiin oo saddexaad albaabka taagan gabadhii baa albaabka furtay waxaa taagan nin adoon ah oo wuxuu wadaa dabaq saxan weyn oo neef ari ah waxaa dul saaran hilibkiisa la shiilay barbecue anagu naqaana sagdan la salay oo rooti dusha ka saaran yahay tira badan markaasuu wuxuu yiri ehelkayga reerkayga baa waxay ugu dhaheen ummul mu'miniina ugeeha ku afurtay waa hadiyad markii gabadhii ay soo qaaday Aisha tii qasashay waxay tiri عن وخبز خير من خبزك وخبز كخير بدل خبز كاجي عن إلهي أكتسو كيد إلهي بصوته تبارك وتعالى فضل كافير بالعجيبة وعائشة لبنا يحيستي بحصي انت أسأل أي هلي بقى لو بدلي هذا إبعادك كويسة أما فقر كويسة أما وحيران كويسة عائشة كنت أي واحدة يستدبحي وحكى بدل ما إلهي كوسين وحيابها صدقات وسميسة وحكمدة ومسألة عن إسلامي هاي والله ما أنت ضد مسلمين هؤلاء داووا مرضاكم بالصدقة قف كجرن صدقة كداوية ولقى حديث كالنبي انت بقى صلى الله عليه وسلم أصوى قف كجرن يهي ما أقصد إنها كداويس الصدقة سيد النبي صلى الله عليه وسلم وحاد علي إمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم قصوين كان شيء انت بدن قف كالربا وحكى آخر سنة كان كتاب لها من عجائب الصدقة وعجيبة أو الصدقة عجيبة وشاكيني عبد الله يعني إمام أبو عبد الله الحاكم أي أجري وجهه وحكى صباح البابا مركز اسبتاق اختار بوتلي wax kasoo sameeyay daawa loo waayay maalmaha kamida asagoo darsi akhrinaya wajiga dhacaamay oo sheekha dhibaata ka haysato ayaa waxa arkay wuxuu soo galay masaajid Abu Uthman as-Sabuni oo darsi ka akhrinay sheekha aqeedada caanka ku ahaa kutubka aqeedada iyo firaq bid'a in la dagaalamo markuu soo galay wuxuu yiri imaam Abu Uthman as-Sabuni baa wuxuu yiri u duceeya imaam Abu Abdullah al-Hakim inuu Ilaahay caafiyo dadka waxay Ilaahay caafiyo asagoo subaxii dambe darsi xadiis sheekhi akhrinay ayaa waraaq baa hortiisa lagu soo tuuray waraaqdii buu furay waxa ku qoran gabar baa waxay dhahaysaa muslima xalay baa waxaan ku riyooday nabiga sallallahu alayhi wasallam riyan ku arkay ajiib markaasuu nabigu wuxuu igu yiri waxaad ku tiraahdaa Abu Abdullah al-Hakim waxaad ku dhahdaa yuwassi' al-maa'a lil-muslimiin muslimiinta biyaha sadaqaysto sheekh darsigii buu dhameeyay markuu dhameeyay ayuu kacay gurigiisa darbigiisu wuxuu ka qoday barkad intuu niman xamaaliyaal u yeelay biyaha lagu shubay dariskii baa ka cabay والله تدوبري كدب بوغيه way dhamaadeen way baabeen ajiib way maanta qofka muslimka waxa haysta kansar waxa haysta xanuun waxa haysta dhiikar waxa ku haya xanuun kasta diabetic sonkor baa ku haysa xanuun kasta ku haya xanuun ma ku haya xadiidka nabiga intaad aaminti daawo mardaakum bi sadaqa bafiir sadaqa baxso bixi ilaahi asagoo daaweeyay baa arki doontaa way dhacday mar badan way dhacday qisooyin xadiis aba dhacay hada waqtigan la joogaa waxa dhacday qisa ajiib ah laba cunug oo yar yar oo walaalaha ciyaaraya ayaa mid kamida dhirta isha waxa ka galay qori waxba ku jabay isha way dhacaamaysaa waxba ku jira dhaqaatiirtii loo geeyay oo dhan way ka baqeen isha meesha madow way dhakhtarkaas wuxuu leeyahay anu ajiib ma taaban karo waa khatar isha haddaan taabto isha wuu beelaya cunug hooyadu way iska ooyday way dhibaatootay cunugii ma seexan karo indhihii biyaha ka daayay maalintii dambe waxay maqashay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa daawo mardaakum bi sadaqa ma nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam arka waa inaan fiiriyo sadaqa bixis صدقة وين بيحس waxay tiri usbuucii dambe cunugii baan check up dhakhtar geeyay dhakhtar baa wuxuu igu yiri way tiri bal anaa ku nasiibsanayo cunugan baroobeynay inaan qabo markaasuu markuu wisiteynay ayuu ishii saas u taabtay wixii oo cadda furtu ka soo banaanka ku soo dhacay Allahu akbar markaasuu dhakhtarka wuxuu yiri wixii way soo baxeen gabadhii waxay qalbigeeda ku jirta daawo mardaakum bi sadaqa nabiga sallallahu alayhi wasallam
عجيب وي كفائديس أخي جرها كويسة دبا كويسة ميلك لها آذن وعافمات نبي قلنا بري صلى الله عليه وسلم وعافمات عبادة كفائديس اسكتي سماه وتكون عافمات إن شاء الله تعالى هذا تكون عافمات ويدي حولا إيمان كاغا هو سيئة انت إيمانك حوجسه أو آمن في الحديث كالنبي سماه وتكون داوو بيسا حقيقة وي أرنكاس أرنك له عجيبة وصدقاته لا وحوية أرنكاسي صدقاته وحي إليسا بلايوينك إيا مصيبوينك ما أنت مصيبوين بعد عيبا عروضة مصيبة كل عي بابور با كل قدوم جرها كل عي مصائب با سودي دكان با قبن خير با اسفوري واستقالي قف با وحا كل عيا جرها دقدقة مصيبوين كاتلة بدن إعد عيا وحا إلهي كل دفاع صدقاته يعني وياب كلا وحا كمدا محمد بن وضاح رحمه الله وأن علماء هراء مسلمين تعان كاي كمدا أيام علم أنها كمدا أصدقوا درس حديث آخرين وفضية يا وحا أصل قال من أردي كسوه حكوية عنو قاقي يرى ayaa waxa ku dhacday taayir beer lagu falayay beerta taayirada weyn oo loo jiido lagu falayo ayaa ku dulnaa sheekhi wuu fikray wuu aamus xoogaa wiilkii ardayga kitaabka akhriyo wuxuu yiri wad darsiga sii wad wiilkii darsiga iska waday sheekhu iska aamus Muhammad qof la yiri ilmaha balaayo ku dhacday oo kicin oo isbedelin oo qiiroonin oo aan ooyin oo nixin ka war darsiga markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordaya soo galay markaasuu wuxuu yiri abshir bishaarayso Muhammad ibn Wadaah wiilkaagii taayirkii waan ka kicinay waxba ma gaarin maradiisii umbuu la haray maradii unbaa ku dhegtay taayirkii xabad wiilkii ma gaarin ninkii sheekhiyaa wuxuu yidhi awalaan yaabayey awal ayaan yaabanaa saaka waxaan arkay buu yidhi wiilkaa yarka ah oo albaabka maskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti ah siinaya markaad hadda idhahdeen buu yidhi dhibaataa ku dhacday waxaa isu kay qaban weyday saakuu sadaqa baxsaday haddana musiibaa ku dhacday arrinka asalkuna wuxuu ahaa الصدقة تدفع البلايا صدقة البلايا ينكي علسا marka wuxuu waa isu kii qaban weyday laakiin waan fahansanaa inaan wax ku dhacayno qofkaas iimaanka fiir akhi hadaad sadaqa baxsato oo maanta wax sadaqaysato musiibo kuma dhacayso dhibaato kuma taabanayso ma ku daraa qiso kale insha Allah taala waxaad moodaa qisooyinka aad u badan qiso kale inuu ku daraya oo cajiiba waxaan rabaa qofka muslimka inuu dareemo fadliga ay sadaqadu leedahay daawo ka raadin kitaabka min ajaa'ib sadaqa sheekh ayaa wuxuu qoray wuxuu anoo meel nin macallimiinta kamid oo ku kalsoonaa wuxuu ii sheegay anoo meel taagan baabuurta laga raaco ayaa wuxuu waxa iimid inuu yaro ordayo miskiin kaasoo yaa am adeero waxaad isiisaa 10 riyaal 5 riyaal wax isii aan khubus ku gato maxaad ku gadanaysaa shawarmaan ku gadanaya 5 riyaal baa intaan soo bixiyaan siiyay 5 riyaal baa u farxay wala orday wuxuu ku galay makhaayad buu galay wuxuu anoo cunugi wali ka fakiray cunugi maskaxdiisu ku jira ayaa wuxuu waxaan anigii afar kale ya baabuur taxi asla kiraysanay wadamo muslimiin taxi wala soo sheer garaya markaan xoogaa soconay ninkii taxi laha baa i caayay wani adiga nin xun baatay adoo kale ma qaaday iga deg taxi wani aniga maxaad gartaa wani khabiis baatay nin xun baatay waa istagaalay waxaan ilmi waa lacagteeda i celi waa ka harayaa lacagtii uu soo celiyo soo qaatay waa soo lugeeyay meeshan taxi ka soo raacnay baan ana wuxuu xanaaqsan oo istajinaya meesha imid baabuur kala soo raacay wallahi wuxuu yiri markaan xoogaa kadib soconay ayaa waxaan u nimid baabuurkii intuu gadoomay oo uu gubtay afartii nin iyo darawalkii shantiiba ku dhinteen waxaan fahmay buu yiri sadaqadaydii baa iga soo saartay iga reebtay musiibadaas akhi waxa xasuusta maanta waxba sadaqaysanaysa aduu ma ogid waxa dhici karta shil baabuur inaad kaga badbaadi musiibo carruurta inaad kaga badbaadi jirro xun inaad kaga badbaadi dukaanka oo guban lahaa inaad kaga badbaadi waa security way waxaan hadda leeyahay life insurance oo la geli dadku galaan way waa insurance way waxaad noqonaysaa qof ilaahay u xifdiyay waxaan ku soo khatimayaa kalimadan hadduu qofku wax haysto ama waxay karo oo wixii uu ku bakhaylo ila sadaqada maalka ilaahay baa bixiya ilaahayna dadka uu gacantooda galiyo uu imtixaamaya dadku qaar baa lacag haysta mid baa wax yar haysta mid baa wax badan haysta qof walba waxa rabaa wuxuu haysta wax laag inuu bixiyo hadduu bixin waayo maxaa dhacaysa inta laga qaado ayaa mid kale oo bixinaya la siinaya ilaahay wuxuu yiri wa inta tawallow yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum hadaad jeedsataan ilaahay wuxuu idin ku bedelan qolo idinka fiican oo idinka oo kale aan ahaanin oo idinka fiican qisaan ku xasuusinaya nin ayaa gabar aroosay habeenkii ugu horeysay arooska ayagoo casho dhigtay oo aad faraxsan waa habeenkii la yiraahdo inagu waxaan dhahnaa gabdho waxay dhahaan caawa habeenkaygii oo habeenkii aad ku lahayd nolosha way waa faraxsan ayaa albaabka miskiin ku soo gargaraacay gabadhii baa xagga albaabka ka tagay istaagtay oo waxay tiri waa ay suuyo qof miskiin oo tuugsanay wax siiye markaasay tiri waa miskiin tuugsanay suuyo baxde cayri saacadaan oo kala ya albaabada la isku soo garaaca marqaankiiba ilowsiyay iyo farxadii wax walba gabadhii waxay tiri aniga orod naga tag
wax ma ku siinayna bax naga tag ninka guriga lahaa wuxuu kii soco bax ninkii waa iska tegay soo aad u niyad jabsan waxaa muddo kadib ninkii xaaskiisa waa iskhilaafeen muddo waa la iskhilaafay waa la isdagaalay reerkii waa burburay ninkii naagta waa kala tagay waa isfureen ninkii buufis baa ku dhacay wuu waashay magaaladu iska galay isagoo waalan isagoo tuugsanaya oo ninkii waalan gabadhii intay ciddadii ka baxday oo iska joogtay baa nin kalaa gursaday gabadhii iyo ninkeedii dambe oo hameen isla cashaynayo guri fadhiya ayaa albaabka lagu soo garaacay barkii say way istaagtay way soo noqotay waxay waa nin miskiin oo tuugsanaya kaasuu yidhi maasha allah ma miskiin baa caawa noo yimid ma ilaahay baaba dadkii naga soo doortay ilaahay baa nagu soo aadiyey cuntadaan sii lacag buu soo wixii lacagtaana ugu dar maxaan kuu qabaa naad u baahan tahay nin miskiinka waxaa la siiyey raashinkii iyo lacagtii isagoo faraxsan markuu jeersaday ayaa gabadhii waxaa la rabaa inay farxdo soo ma iyadoo ilmaynaysa bay soo laabatay ninkii wuu fiiriyey wuxuu ku yidhi maxaad la ilmaynaysaa walaalay kugu dhacdo ooyeysaa markaase waxay tidhi waxaan la ooyayaa ninka miskiinka albaabka taagnaa waa ninkii hore oo iqabi jiray fiir waa ninkii hore oo iqabi jiray waxaana ilaahay ku ciqaabay yaan u malaynayaa hameen baa isaga oo saan oo kale ila cashaynaya ayaa miskiin albaabka soo garaacay markaasuu si xun ula hadlay ninkii waan isfuray wuuna waashay miskiinkiina hameenka si xun buu u cayriyey ninkii qabay gabadha ayaa ooyay isaguna wuu ilmeeyey markaasay tii adigana maxaa kugu dhacay si waxaan la ooyayaa ninka hameenkaas tuugsanayo albaabka gargaraacayay anigu ahaa fiir kanaa reerka qabay sadaqadii buu diiday maalkiibuu ku bakaylay waa la waalay reerkiibuu ka tegey mid kale oo sadaqaysta kiibaa yaa fiicnaaday oo wax helay oo degay ilaahay dejiyey naagti baa ilahay u guuriyey wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum akhi ukhti walaalka muslimka gabadha muslimadda ah haddii maanta ilaahay shilin ku siiyey oo ilaahay wax ku siiyey oo aad shaqaysatid oo aad wax heli kartid waxaa jira dad badan oo baahan oo masaakiin waxaa jira hadda masaajidda way baahan yihiin dadkii ehelku way baahan yihiin meel walba baahi baa ka jirta wax sadaqayso sadaqana waxaa ugu fadli badan midda la siiyo sadaqa jaariya ku sadaqayso wax kasoo awoodi baxso insha allah tacaala ilahay waxaan ka rajaynayaa inuu aniga iyo idinka sadaqadana jeclaysiiyo ilaahayna sadaqadan baxsanay inuu ilahay usan naga dayicin wixii kurba iyo dhibna haysana ilahay inuu nagaga faydo wasala allahuma calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasallam